سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته. halkan waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah casharkii ugu sii socda qaybtii hore oo hydrocarbonska ayaynu soo qaadanay oo ahayd saturated hydrocarbons. waxaynu soo qaadanay physical property-gooda, chemical property-goodii ayaan soo dhamaynay iyo isomeriskii. bal halkan waxaan qaabeynaa qaybtii labaad ayaan ka bilaabeynaa oo ahayd unsaturated hydrocarbons. hydrocarbonska unsaturatedka oo alkaneska ama alkeneska ku wada yaala way alkenes. okay, unsaturated hydrocarbonsku iyo waxa loo yaqaanaa are alkenes or alkanes. kuwa kana waxa la yiraahdaa alkanes oo yne ayay ku dhamaadaan, kuwa kana waxay ku dhamaadaan ene. marka labadaas waxa la isku yiraahdaa unsaturated hydrocarbons. kuwa kana waxay leeyihiin double bond alkeneska, alkaneskuna waxay leeyihiin triple bond. marka sidaa daraadeed maadaama labaduba aysan single bond lahayn waxay noqonayaan unsaturated. laakiin saturated yaa ahaa alkaneska kuwa kusoo marnay, iyagu double bondna ma leh, triple bondna ma leh. laakiin kuwani unsaturatedka la yidhaahdaa waa labadaas alkaneska iyo alkaneska. oo alkaneska sababtay u noqdeen unsaturatedka waxay leeyihiin double bond, kuwa kana waxay leeyihiin triple bond. bondiga triple-ka ah iyo kan double-ka ahi waxay u yihiin molecules-ka electrona kaydsan oo xilligu doono uu reaction ku geli karo. marka waa sidoo loo yiri marka waa kuwa unsaturated ma dhereegsana. unsaturated waa ma dhereegsana way oo wali waxbay qabsan karayaan. atoms kala lagu dari karaa iyagoo atomiskoodii hore kaarboonadii iyo hydrogenadii aan waxba laga bedelin ayaa waxa lagu sameyn karaa, waxa lagu dari karaa shay kale. awoodda way u leeyihiin, waxaana u sahlaya waa double bondka hadday yihiin alkaneska iyo triple bondka hadday yihiin alkaneska. laakiin tani uma suuragelayso kuwii aan soo dhaafnay oo loo yaqaano alkanes. alkenes baa inaga marka inoo khuseeya. alkanesku waa out of topic ama out of syllabus. alkeneska inagu qaadanaynaa are very reactive than alkanes. way ka reactivesan yihiin marka loo barbar dhigo alkaneskii aan soo dhaafnay. oo alkanesku double bondka ay leeyihiin ayaa ka dhigaya in ay noqdaan kuwo reactive oo aad u firfircoon in ay noqdaan. the alkenes marka bahalaha la yiraahdaa ama hydrocarbonska alkeneska are very reactive than alkanes because sababtu maxaa weeye marka why ayay uga reactivesan yihiin? because sababtu waa maxay? they have waxay leeyihiin double bond between carbon atoms. meesha waxaa ku jira waa double bond. double bondkaas ayaa wuxuu ka dhigayaa inay noqdaan kuwa reactive. horaan usoo sheegnay double bondku molecules-ka waxa uu yahay electrona kaydsan oo uu sarrifan karo marka uu rabo inuu shay kale oo dheeraada qabsado isagoo atomiskiisii hore u dhan yihiin. atomiskiisii hore waxa lama bedelin, laakiin kii hore waxaan kusoo qaadanay alkaneska yacni waxaa lagu khasbay in la sameeyo substitution, la bedelo hydrogenada. kan laakiin waxa weeye isagoo aan hydrogen la bedelin, carbonna la bedelin, ayaa waxaa lagu darayaa atom kale oo dheeraada. waxaana u sahlaya waa maxay? waa double bondkaas. double bondku marka molecules-ka wuxuu ka dhigayaa mid reactive ah oo aad maxay u firfircoon ayuu ka dhigayaa. good.
halkan waxaan ka bilaabaynaa marka physical properties ka marka alkenes sidaan ku hore ku soo qaadanay oo kale physical properties of alkenes sida caadiga ah maadaama ay yihiin hydrocarbons waxay kala mid yihiin alkaneski inay iyaguna ka kooban yihiin carbon iyo hydrogen waxay like sidii alkaneski oo kale they are hydrocarbons or hydrocarbons because they contain only carbon and hydrogen atoms. They contain only carbon and hydrogen atoms. maadaama magaca guud ay wadaagaan oo hydrocarbon ay wada yihiin marka iyagana waxa la hayaa waa hydrocarbons halka marka waxay kala mid yihiin groupkii labaad groupkii koowaad oo ah alkanes ay kala mid yihiin maadaama hydrocarbon ay yihiin property-ga labaad oo physicalka they contain at least one double bond oo mid lagu yaqaan waxay ka kooban yihiin ugu yaraan hal double bond oo ka badan ka laba double bond waa ku jiri karaan saddex baa ku jiri kara laakiin ugu yaraan waa in meesha uu ku jira hal double bond inta kale haday doonaan single bond ha ahaadeen laakiin meel kamid ah hadii uu ka soo galo double bond molecule-kaas waxa loo tixgelinayaa inuu yahay family-ga alkenes they contain at least ugu yaraan one double bond between kaasoo uu u dhaxeeya carbon atoms waataan soo sheegnay mar walba marka leeyahay single bond baa ku jira iyo double bond baa ku jira cidda laga hadlayo waa maxay waa carbonada they contain at least one double bond between carbon atoms this is why they are called waa sababta loogu magacaabo magaca sababta ku qaataan unsaturated hydrocarbons unsaturated maxaa weeye they have double bond waxbaa lagu dari karaa dheeraada atomiskoodii aan hore loo iyaga ku hore aan la bedelin oo sidooda ugu dheeyeen baa mid atomyo kale lagu dari karaa ama group of atoms kale lagu dari karaa taana maxaa u sahlaya inay unsaturated noqdaan because of double bond between carbon atoms double bond kana wuxuu yahay electron kaydsan oo xilligu doono molecule-kaas uu sarifan karayo waa kana 18 ayay ka bilowmaan waataan soo sheegnay iyagoo mid hal carbon kama bilowmaan iyagoo meesha ugu hooseysa maxaa weeye laba carbon bay ka bilaabanayaan ilaa markasta double bondku wuxuu ka dhaxayn karayaa ugu yaraan laba carbon marka waa kana labadan carbon kan waa carbon ka kale waxaan muujinay dot and cross diagram halka waa double bond labadatan electron ama halka beeri waa hal bond buu samaynayaa labadatan bond kale sidaas daadeed marka waa double bond afar electron meesha hadii la wadaago waa double bond kan marka hadii double bond uu shirgay muxuu qabsan karaa laba hydrogen kan xabad buu la shirgeynayaa kan xabad buu la shirgeynayaa sidaas daadeed marka xaga xabad buu la shirgeyay kan xabad buu la shirgeyay xagana la buu la shirgeyay sidaas daadeed carbon kan wuxuu shirgeyay afartiis carbon kan waa la mid isaguna xaga wuxuu qabsanayaa hydrogen xagana wuxuu qabsanayaa hydrogen xagana wuxuu la shirgeyay la buu shirgeyay xagana xabad buu shirgeyay xagana xabad buu shirgeyay afartaas ku shirgeyay marka labo iyo labo afar buu haystaa iyo afarta labada ka dhaxaysa labada carbon waa 8 kana waa la mid afartan waa la wadaagaa markasta labada ugu dar 6 labada ugu dar 8 marka 18 ayaa leedahay it waa maxay waa labo marka molecule-ka hadduu double bond meesha uu ku jiro oo afar electron la shirgareeyo molecule-kaas waxaan leenahay waa saturated hydrocarbon ayuu noqonayaa ama alkene ayuu noqonayaa waa kuwa kan kuwii kalena iyagana 18 hadda marka caadi loo muujiyo displayed formulaha waa kan double bond baa ku jira laba hydrogen buu qabsanayaa kan kalena laba hydrogen propene waa tana iyadana maxaa ku jira hal double bond baa ku jira laakiin labadan maxaa ka dhaxaya single bond laakiin halka maxaa ku jira double bond single bond kan la tixgelinayo double bond kaas la tixgelinaya marka in bay qaanaysaa propane la dhimayo propene ay noqonayso waayo waxa ku jira double bond kan waa maxay waa butane waa afar way marka labadan waxa ka dhaxaya single bond labadan waxa ka dhaxaya single bond laakiin halakan labada ugu horeeya double bond baa ka dhaxaya taas marka maxay ka dhigaysaa inuu noqdo alkene la tixgelin maayo kuwa kan kale oo single ka ah meel kamid ah hadduu ka soo galo double bond molecule-kaasi automatically waxa lagu darayaa
waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay alkene marka la saddexda ugu horeeyo weeye saddexda member ugu horeeya ethene ayaa ugu horeysa waa taan soo sheegnay hal carbon iyo kuma bilowmaan oo midday kaga duwan yihiin alkaneska iyo hal carbon oo methane ayaa jiray laakiin halkan methane ma jirto meesha ka bilaabanaya waa ethene laba carbon propene waa saddex carbon oo laba ka mida uu ka dhexeeya double bond waxaa ku xigta butene waa afar carbon oo labada ka mida laba ugu horeeya uu ka dhexeeya double bond marka bentene baa ku xigay ka hexene intaa haddaa maqasho waxay ku caddaynaysaa molecule-kaasi waa maxay waa alkene family qodobka saddexaad like alkaneska sidaan ku naqaanay alkaneska the chains increase one carbon each chainsku sidaan kuwii hore kusoo aragnay waxay kordhayaan hal carbon bal halkan fiiri kuwa aan kusoo aragnay kuwa waa laba carbon waa it waa saddex carbon waa prop waa afar carbon waa but marka maxay leeyihiin kan labo carbon buu ahaa kanu saddex weeye kanna waa afar carbon marka silsiladuhu maxay kordhayaan one carbon each midba markaa midka kan ku xigaba muxuu dheeryahay hal carbon buu leeyahay but they start from ethene not met hata waxay ka bilaabanayaan ethene ayay ka bilaabanayaan met ma laha met waa hal carbon wey yani hal carbon kama bilowmaan waxay ka bilaabanayaan waa ethene oo laba carbon because double bond is only between double bond wuxuu ka dhaxayn karaa ugu yaraan two carbon atoms ayuu ka dhaxayn karaa hal carbon ma samayn karo double bond laakiin waa inay meesha ka jiraan ugu yaraan laba carbon waa kana marka lagu muujiyo carbon iyo carbon labo maxaa ka dhaxay waa double bond labada xariiqood ama laba line haddaa aragto waxay u taagan yihiin double bond marka chainsku waxay kordhayaan hal carbon each markaad hal silsilad ka tagto oo silsiladda aado kan ku xigta aado hal bay dheer tahay laba carbon saddex carbon afar carbon saas ku soconaysa qodobka afraad they are homologous series waataan soo aragnay markasta oo silsiladuhu ay sida hadda aan kusoo aragnay ay kordhayaan hal carbonadu ay kordhayaan isla markaana dabeecad guud ay wadaagaan ama general formula isku mid ay wadaagaan silsiladahaas waxa loo yaqaan waa hal family ama waxa loo yaqaan waa homologous series marka family iyo waxa isku mid ah homologous series marka haddii la yiraahdo homologous series ka uu ka mid yahay waa kee molecule-kan waxa laga wadaa family-ge ayuu ka mid yahay waayo homologous series waxaan hore u soo qaaxnay bilowgii oo waxay niri waxa la yiraahdaa chains with the different chain length but same property or same general formula chainska ku kala duwan dhererka mid baa laba ka kooban haddaan kan fiirino aan soo dhaafnay kan laba carbon buu ahaa kan saddex carbon buu ahaa kan afar carbon buu ahaa dhammaantood marka maxay wadaagaan hal baa ka dhaxaysa double bond baa ku wada jira double bond baa kuwa dhammaantood ku wada jira marka maxay astaanta guud ay wadaagaan waa double bond bay wada leeyihiin laakiin haddana silsilad ahaan way kala yar yihiin laba carbon bay tan ka kooban tahay saddex carbon bay ka kooban tahay afar carbon bay ka kooban tahay good marka homologous series baa la yidhahdaa marka which means taasoo macnaheedu yahay they have same functional group oo waxay isaga mid ka yihiin functional groupkooda marka muxuu yahay functional groupka lagu yaqaano alkenesku waa double bond meesha hadduu ku jiro waxa weeye homologous series kaas waa maxay waa alkene marka they are homologous series maxay ku noqdeen homologous series because baa la yidhi which means taasoo macnaheedu they have waxay leeyihiin same maxay wadaagaan functional groupka ayay wadaagaan and same general formula mar haddii functional groupku isku mid yahay general formuluhuna waa isku mid marka silsilado chainska ku kala duwan oo dhererkooda ku kala duwan ama number of carbon ku kala duwan kuwaasoo leh functional group isku mid ah general formula isku midana leh ayaa waxaa loo yaqaanaa homologous series the general formula marka of alkeneska lagu yaqaano waa maxay waa 2n waa C2H2n C2H2n halkaa maxay kaga duwan yihiin alkaneska waxaa raacsanaa plus 2 oo kuwii alkaneska waxay ahaayeen C2
halkaa n baa ka wadnaa halkaas 2 ma ah halkaa n wey meeshaan waa cn baa laga rabaa halkaa cn h2n maxaa raacsanaa plus 2 laakiin kuwa kan plus 2 waa ka harayaa 2n keliya wey marka number of hydrogen kuwan maxaa ku helaysaa 2n baa ku helaysaa laakiin kuwii hore alkaneka maxaa lagu helaya 2n plus 2 haddaad dib ugu noqoto casharkii hore okay eg marka tusaale 18 fiiri ayaa ugu horeysa it waa maxay labo enta marka maxaan ku bedelanayaa labaan ku bedelanaya waxay noqonaysaa waa c2h aye 2 baa halkaa ku dhufsanaa marka enti maxaan ku bedelanaya haddana 2 maxay noqonaysaa markaa c2h2 times 2 oo la mida c2 h2 markaa maxay noqonaysaa imisa hydrogen waa 2 times 2 oo la mida 4 baa kuu soo baxaya markaa marka maxay noqonaysaa markaa molecular formulaha 18 waa c2h4 halkaa noqon mayso h6 hadday noqoto waxay noqonaysaa alkane oo ethane ayay noqonaysaa tan laakiin waa 18 laba hydrogen baa ka baxaya meesha waayo meesha dhowr baan baa ku jira marka c2h4 propene ayaa ku xigta prop waa 3 ent maxaan ku bedelanayaa 3 ku bedelo waa c3h2 times 3 meel kastoo entaa 3 ku bedelanaysaa halkan ent 3 aan ku bedelay halkan 2n buu ahaa maxaan ku bedelay iyadana 3 baan ku bedelay waxay noqonaysaa c3h6 oo 6 kan xagee ka yimi waa 2 times 3 buu ka yimi good waxaa kuugu xiga butane oo iyadana 4 ah but waa 4 weeye but waa 4 maxay noqonaysaa iyadana ent waxaan ku bedelanayaa 4 maxay noqonaysaa c4h2 times 4 enta kalena 4 ku bedelo meel kastoo enta 4 baa ku bedelaysaa waxay noqonaysaa c4h8 baa kuu soo baxaya markaa c4h8 marka molecular formulaha butane wuxuu noqonayaa waa c4h8 benti waa 5 wey marka enta waxaan ku bedelanayaa 5 waa c5h2 times 5 oo haddana enta kale 5 ku bedelo waa 2 times 5 maxay noqonaysaa markaa c5h2 times 5 maxay noqonaysaa 10 marka bentene waa maxay waa c5h10 hexene iyadana waa 6 maxay noqonaysaa cnh2n bay ahayd dhooska inta 6 ku bedelo marka waa maxay markaa c6h2 times 6 oo la mida markaa c6h2 alif 2 alifkan xagee ka yimi waa laba lagu dhuftay 6 2 times 6 waxa kuu soo baxaya waa 2 alif heptene ayaa ku xigta heptene iyadana waa 7 enti 7 ku bedelo haddana waa c7h2 times 7 marka maxaa ii soo baxaya markaa waa c7h14 ayay noqonaysaa h14 kaas xagee ka yimi yani 14 hydrogen baa ku jira maxaa laga wadaa yani waa laba lagu dhuftay 7 ayay noqonaysaa bekatimi marka waa h14 bay noqonaysaa waxaa ku xigta octane baa ku xigta octane dhammaantooda intaasi qaadanaya intaa haddaa maqasho gadaal ka raacaysa waa family namekii alkene buu ahaa magaca markasta intaa waa inuu la socdaa magaca waataan soo sheegay mar walba intaa hore waxay sheegtaa tirada kaarboonka inta dambena waxay sheegtaa family name marka intaa hore waxaa loo yaqaanaa stem ayaa la yihahdaa inta dambena waxaa loo yaqaanaa family name ayaa la yihahdaa marka stemka deetana waa kale ugu dambaysa haddaan eegno waa octi way stemku waa 8 marka ku bedelo marka nt 8 ku bedelo waa c8h2 times 8 maxaa kuu soo baxaya marka c8h16 ayay noqonaysaa molecular formulaha octane nonene waa 9 weeye n ku bedelo nt waxaa ku bedelaysaa 9 waxay noqonaysaa markaa c9h2 times 9 oo la mida c9h18 good war male ugu dambeynta waxaan ka dhigi doonaa dekene dek waa 10 wey ku bedelo marka nt 10 ku bedelo waa c10h2 times 10 oo la mida c10h20 20gan wuxuu ka yimi
waa 2 times 10 ayuu ka yimid sida daada general formuluhu halkaas waataan soo sheegnay n baa laga wadaa marka CnH2n CnH2n kaas wuxuu kuu sahlayaa dhammaantood muxuu kuu sahlayaa inaad soo saarto molecular formulaha member kasta sababtoo ah waa homologous series haddii homologous series yihiin xeer ayaa lagu soo saarayaa xeerkaas lagu soo saaraya CnH2n taas ayaa loo yaqaanaa general formula markastoo aad homologous series-ka aad taqaanid mid ka mida memberka magaciisana lagu sheego waad qori kartaa molecular formulaha adigoo isticmaalaya the general formula waa very important oo haddeer haddaan ninku yidhahdo konton carbon buu ka kooban yahay haddaan ku mid konton carbon ka kooban oo alkiina qor formalihiisa maxay noqonaysaa halkaa waxaan ku bedelanayaa enta ah halkaan n baan ka wadnaaye konton baan ku bedelanaya kana boqol buu noqonayaa waa 2 times 50 marka muxuu noqonayaa C50H100 ayuu noqonayaa qodobka shanaad haddaynu sii aadno weli waxaan ku jirnaa waa physical properties like alkanes sida alkaneska aan ku naqaanay they are non-polar molecules like maqlaysa like lagu soo celinayo yani waxyaaba badan ay wadaagaan maadaama ay yihiin hydrocarbons marka like alkanes sida alkaneska aan ku naqaanay they are non-polar molecules wax polarity ma laha oo mar kasta hadday hydrocarbon yihiin waxay ka kooban yihiin labada element oo ah carbon iyo hydrogen sida daadeed bondi kasta oo ka dhaxeeya carbon iyo hydrogen waa non-polar bondi kasta oo ka dhaxeeya laba carbonna waa non-polar sida daadeed overall guud ahaan marka molecularkaasi bondiska ku jira haddii ay noqdaan wada non-polar isaguna wuxuu noqonayaa guud ahaan non-polar buu noqonayaa qodobka lixaad since they are non-polar maadaama ay non-polar yihiin they are insoluble in water waa sida lagu yaqaano way hydrocarbonska oo dhan biyaha kuma milmaan waayo polarity waa non-polar way waxa non-polar haddii molecularka uu yahayna inta badan biyaha kuma milmaan waa insoluble biyaha waxaa ku milma horey usoo sheegnay shayga hadduu yahay polar oo polarity uu leeyahay iyo haddii uu yahay ionic oo ion ay ku jiraan oo waxaa loo yaqaana markii biyaha uu ku milmo shayga polarka ahi waxaa loo yaqaana polar interaction hadduu ionic waxaa loo yaqaanaa ion polar interaction waayo biyuhu iyaga polar ah marka shay polar markii lagu daro waxaa dhacaya interaction isdhexgal ama isqabsasho oo loo yaqaano polar interaction waa laba polar oo isku milmay hadduu ionic yahayna sida hadda sodium chloride oo kale iyadana waxaa dhacayaa ion polar interaction laakiin halkan hadduu non-polar yahay ma dhacayso wax loo yaqaano polar interaction ma jirayo sida daadu maxay noqonayaan insoluble biyaha kuma milmaan but soluble laakiin waxay ku milmaan in non-polar solventska ayay ku milmaan oo aan soo sheegnay oo ay ka mid tahay tetrachloromethaynta oo ay ka mid tahay ethanoosha iyo wax la mid ah marka iyagu solubilitygoodu waa insoluble in water why because they are non-polar polarity ma laha qodobka toddobaad the boiling point and melting point boiling point and melting point labadaba increase way kordhaan with the chain length maxay la kordhayaan tanna waan kusoo qaadanay alkanesko kala wey boiling pointiga iyo melting pointiga waxay la kordhayaan silsiladda ama number of carbonka markastoo silsiladdu ay dheeraato ama number of carbonka uu batoba silsiladday ka dheer tahay oo number of carbonkeedu ka badan yahay silsiladaasi way ka boiling point badan tahay wayna ka melting point badan tahay sababta maxaa weeye horey usoo sheegnay because number of electrons increases as the carbon chain gets longer markii silsiladdu ay dheeraatoba waxaa kordhaya tirada electronska so van der Waals force become stronger uu adkaanaya daasoo macnaheedu yahay more energy is needed maxaad u baahan tahay haddii bondiga haddii rabo in la jebiyo forcigaasi waxaa loo baahan yahay energy fara badan oo molecularku marba haddii uu yahay non-polar oo kuwaan soo sheegnay qodobka lixaad bay kusoo sheegnay inay yihiin non-polar maadaama ay non-polar waxaan leeyahay qodobka shanaad baa kusoo sheegnay qodobka shanaad maadaama ay kusoo sheegnay inay yihiin non-polar molecularada non-polarka ahi intooda badan forciga keliya ee possible-ka ah ee isku haya
molecular atoms laga hadli maayo waa molecular ila fenderwalis force waa intermolecular force intermolecular force maxaa laga wadaa waa molecule isku haya molecule waa leeyahay waa force isku haya molecular marka waa intermolecular marka intermolecular force marba hadeen ka hadlayno molecule ayaa laga hadlaya marka moleculeski force-ga ka jira waa fenderwalis force weeye maadaama ay yihiin non polar marka wuxuu yiri because sababta boonti u siyaada muhiim because the number of electrons increase as the carbon chain gets longer kullama carbon chain ku ay dheeraato so the fenderwalis force becomes stronger fenderwalis force marka muxuu noqonayaa marka mid adag macnaheedu waa more energy is needed halka hadduu adkaado strong noqdo energy farqan baa loo baahan yahay horey u soo marnay melting point-ga iyo boiling point-ga waxa go'aamiya force-ga meesha ka jira kullama force-gu oo si adkaadaba energy-ga loo baahan yahay waa badanaya energy-ga haddii uu batana macnaheedu waa maxay boiling point-gina waa siyaadaya hadii ilaahay good haddaba table-kan ayaan kugu tusaynaa inkastoo aan soo marnay oo alkaneski aan ku soo maray si fiican uga soo hadalnay kuwa kana way la wadaagaan wax badan marka ku dheeraan mayno waayo horaan u soo faahfaahiyay halkan the table below we shows the boiling point or the first four members of alkanes afarta ugu horeeya ayaan fiirinaynaa table-kan oo na tusaya boiling point-ga iyo number of carbon-ka xiriir ka dhaxay waatana compound-ka formulahiisa number of carbon-ka ku jira iyo boiling point-giisa methane ayaa ugu horeysa compound-ka formulaheedu waa CH4 halkan sorry table-kan aan soo qaatay alkaneski uu ka hadlayaa I'm sorry halkan laakiin waa ku apply gareyn karnaayo halkaas waa bedeli karnaa laakiin tiradana isbedelaysa iyaduna laakiin guud ahaan waxay wadaagaan boiling point-ga marka halkan haddaan hataa boiling point-ga alkaneska haddaa sharaxdo iyagana waa la mid oo markastoo iyadana uu kordho tirada kaarboonadu isagana kaarboonada waa kale waa 1 2 3 4 uu kordhaya boiling point-guna wuu la kordhaya marka -164 -187 -42 -0.5 tirada marka hadday minus tahayna waxa taqaanaa sidaba caanka ah tirada hadday minus tahay tirada yar baa weyn marka hadday 164 iyo 184 iyo 142 labadan marka hadday isu fiirino 184 iyo 142 waxa aad u weyn 142 weyn kana ka sii weyn marka walow ay kuwa kan methane aysan ku jirin oo yahay kuwa kan alkanes halkaas waxaan kaga baxaynaa haddii ilaahaynu casharkii ugu horeeyay oo ah physical properties-ka ayaan halkaa kusoo gabagabaynaynaa table-kaas ayayna ku dameeyo haddii ilaahaynu casharkan wuu socdaa chemical properties-kiisa insha allah ayaan ku xijinayaa asxaabta كليبك كويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته